Assalaamu calaykum. Maanta waxaynu ka hadlaynaa xubinta taranka ee ragga in la dheerayn karo ama la weynayn karo. Ugu horeyn, internetka waxaa ka buuxa kumanaan xayeysiis oo ka hadlaya sida loo xoojiyo ama loo weyneeyo xubinta taranka ragga ama guska, iyagoo ka hadlaya kiniiniyaal, kareemyo la marsado, ama qalab lagu dheereeyo ama qaliin lagu sameeyo, kadibna qofka sidii uu rabay uu u noqonayo isaga oo wax dhibaato ah aysan soo gaadhin. Laakiin waxaad xasuusnaataa oo ku baraarugsanaata in wax kasta oo internetka lagu soo daabacaa aanad run u qaadan. Marka hore, wax kasta oo jidhka muuqaalkiisa bedela, ha ahaato xubinta taranka ama jidhka meelo kale oo ka mida sida naasaha, badhida, caloosha iyo wejiga, waa qasab in waxyeelo ay ka dhalato muuqaal beddelkaas, kuwaasoo kala darnaan kara. Waana muhiim qofkii ku fakara arrimahan oo kale inuu ogaado waxay diinta islaamku ka qabto. Haddaba waxaa jira rag badan oo aan ku qanacsanayn cabbirkii iyo qiyaastii Eebbe weyne ku abuuray xubnahooda taranka, kuwaasoo aad u raadiya siyaabo kala duwan oo ay wax uga beddeli karaan. Haddaba kuwaasi badankooda waxa ay ku dhacaan dabinka shirkadaha sida been abuurka uga macaasha daaweynta cabashadaas, waxaana lagu qiyaasaa in shirkadahaasi sanadkiiba ay ka faa'iidaan daawooyinka kobcinta ragnimada $200 milyan. Sidaa awgeedna baaris la sameeyey kadib waxaa la ogaaday in dadka cabashadan muujiya markii 3 qaybood loo qaybiyo, 2 qaybood oo ka mid ah aysan ciladani haysan, laakiin ay iyagu aaminsan yihiin in cabbirka iyo dherarka xubintooda inay gaaban tahay. Sidaa awgeedna waxaa wanaagsan inaad dhakhtar la xidhiidho inta aadan isticmaalin wax daawo ama qaliin lagu dheeraynayo xubintaada. Waxaa kaloo muhiima in qofka uu ku qanco arrintaas si aysan saameyn ugu yeelan xagga dareenkiisa iyo raginimadiisa, iyadoo ka qayb qaadan karta in qofka ay ku dhacdo diiqad iyo niyad jab ama xanuun maskaxeed. Haddaba waxyaabaha dabiiciga ee aad samayn karto si aad u ogaato cabbirka saxda ah ee xubintaada waxaa ka mid a inaad xiirtid tinta bisqinta ama shuunta ama shaciiraha loo yaqaano, maxaa yeelay tinta badan waxay u ekaysiisaa xubinta inay gaaban tahay. Dhinaca kale, haddii aad cayilan tahay ama aad buuran tahay, waa inaad isku daydaa inaad miisaankaaga dhinto, maxaa yeelay caloosha iyo dufanka ka hooseeyaaba waxay u ekaysiyaan xubintaada taranka inay gaaban tahay. Sidoo kalena, ku dadaal caafimaadkaaga guud oo mar kasta jimicso oo samee jimicsi joogto ah si ay niyadda kugu dhisanto oo aad u ekaatid qof soo jiidasho leh, taasoo ka qayb qaadan karta in kalsoonidaada ay siyaado. Maxaa yeelay waxaa la ogaaday dadka arrinta ka walwalsan sababta ay xalka u raadinayaan inay tahay si ay u heli lahaayeen kalsooni ka maqan. Intaas kadibna waxaynu mid uga hadlaynaa dhibaatooyinka kala duwan ee laga filan karo siyaabaha wax looga beddelo xubinta taranka ragga. Ugu horeyn, haddaynu soo qaadano kiniiniyada iyo weliba kareemyada la sheegay inay arrintan wax ka taraan, kuwan badanaa waxaa la sheegay inay ku jiraan fiitamiino, macdano iyo daawodhareed iyo weliba hormoono kale, kuwaasoo shirkaduhu ku andacoonayaan inay xubinta taranka ee ragga weynaysiiso. Inkastoo sheegashadaas ay ku guulaystaan inay dad badan ka dhaadhiciyaan, haddana ma jirto wax caddayn ah oo ku dhisan cilmi-baadhis lagu ogaaday in faa'iido isbeddel muuqaaleed ah inay keento. Waxaana la ogaaday in qaar ka mida daawooyinkaas ayba dhib hor leh u keeni karaan qofka, kuwaasoo markii la baaray lagu arkay maaddada sunta ah ee loo yaqaano merkuriga, waxyaabaha sunta ah ee lagu dilo cayayaanka, bakteeriyada loo yaqaano E. coli iyo waxyaabo kale. Sidaa daraaddeedna brofeesarka loo yaqaano Professor Wiley, oo ah nin ku takhasusay xanuunada ku dhaca xubnaha taranka, waxa uu leeyahay wax isbeddel ah oo ay u keenayso daawadani ma jirto qofka. Waxa keliya ee daawooyinkan ay qofka u tarayaan waa in xubintiisuu awalba ka xishoon jiray ama niyad jabka ka qabay inuu barto ama isku hawlo marka uu marinayo kareemyada, taasoo xoogaa kalsooni inuu ka helo ay dhici karto, ama xishoodkii iyo nacaybkii uu qabay xubintiisa inuu ka baaba'o ay dhici karto. Geesta kalena waxaaba jira qalab lagu soo jiido xubinta taranka,
haddaba qalabkan waa tuubo la geliyo xubinta kadibna hawada laga soo jiidayo si loo cadaadiyo. taasina waxa ay keentaa qulqulka dhiigga xubinta soo galaya inuu bato, kadibna dhiigga uu ku soo aruuro, sidaasna uu ku bararo xubinta taranku. marka uu sidaa noqdana waxa uu ekaanayaa gusku inuu weynaaday, taasoo ah mid ku meel gaadh ah. laakiin dhibka ka iman kara ayaa ah in xubinta ay dilaaci karto ama kacsiga uu ka tegi karo qofka. haddaba shirkadaha gada ama iibiya qalabkan ayaa kula taliya ragga inay maalin kasta dhowr daqiiqadood ay sidaas sameeyaan, laakiin ilaa iyo hadda lama hayo wax isbeddel oo lagu arkay muuqaalka xubnahooda markii ay dhakhtar la xidhiidheen. haddaba dadkaas qaarkood waxaa dhaawac ka soo gaadhay neerfaha xubinta taranka iyadoo dareenkii dhan uu ka guuray. dhinaca kale isaguna waxaa jira qalab lagu soo jiido ama lagu dheereeyo xubinta taranka. qalabkan waa wax lagu xidho xubinta oo culays ku wata afka hore, kaasoo xubinta hoos u jiida iyadoo culayska laga filayo inuu xubinta dheereeyo ama uu jiido markii ay muddo ku xidhnaato. haddaba baaris la sameeyey waxaa lagu ogaaday in isbeddel leeg 1 sentimitir oo dherer ah inuu ragga qaarkiis ku siyaadiyey muddo 6 bilooda markuu ku xidhnaa qalabkaasi. laakiin isagana waxa uu la mid yahay dhanka dhibaatada qalabkii aynu soo sheegnay hore. isbeddelka aadka u yar ma aha wax indhaha lagu fahmi karo ama lagu dareemi karo. sidaa awgeedna markii la waraystay dadka isticmaala qalabkan waxa ay muujiyeen niyad jab iyo inaysan isbeddel haba yaraatee uusan jirin. qaarkood waxa ay kala kulmeen inay kaadidu ka farabaxsato iyo in tuubada ibta kaadida ay dilaacdo. geesta kalena waxaa jirta gacankulisidda ama tuujinta xubinta taranka. tani waa mid aad ugu badan ragga, iyagoo si joogtaa u lisa ama u jiida xubnahooda. middan isbeddel cabbirka ah ma keento, laakiin waxa ay keentaa inay xubintu kacdo, taasoo u ekaanaysa inuu cabbirku weynaaday. qofkana niyadda ayaa u dhisanta, laakiin isbeddel joogto ah ma laha. waxaa kaloo jira qaliin lagu sameeyo xubinta taranka. qaliinkan sida loo sameeyo waa in jidhka laga soo gooyo dufan ama xaydh, iyadoo lagu tolaayo si ay ugu ekaato inuu weyn yahay ama cayilan yahay ama buuran yahay ama xoog weyn yahay. tani dhibka ay keenta ayaa ah meeshii laga jeexay xubinta ayaa haar yeelataa, oo markii xubinta ay kacdo kadkaduud iyo xanuun ama qalooc xubintu ay yeelato. mararka qaarna caabuq ayaaba ku dhasha meesha qaliinka lagu sameeyey. waxaa kale oo jira qaliin kale oo xubinta lagu dhex tolayo wax injir ka samaysan si uu gusku ugu ekaado wax weyn oo kale. laakiin dadka loo sameeyo qaliinka noocan ah ayaa ka muujiya niyad jab, waxaana la sheegaa in dadka qaliinkan loo sameeyo oo u badan dalalka reer galbeedka inay u bataan inay isdilaan niyad jab awgiis. maadaama aynu ka soo hadalnay qaliinka lagu weyneeyo xubinta taranka, haddana geesta kale waxaa jira qaliin lagu dheereeyo xubinta taranka. xubinta ragga waxaa jidhka ku haysa seeddaasoo aad u dheer oo ilaa bisqinta ku dheggan. waa seed xubinta kor u haysa markuu kacsan yahay. haddaba qaliinka lagu dheeraynayo xubinta taranka waxaa lagu gooyaa seeddaas, kadibna xubinta hore ayay u soo laalaadsantaa oo way soo dhacdaa, waxayna u ekaataa inuu weynaaday. laakiin dhibka ka dhasha ayaa ah in hadduu qofku kacsado in xubintaasi ay madaxaba kor u qaadi weydo. ragga sidan sameeyana ama ragga sidan loo sameeyana ayaa galmada dhib ku qaba, kumana faraxsana qaliinka ay galeen, iyaga oo aanan ka fakerin waxaa laga filan karo dhibaato. geesta kalena waxaa jira qaliin lagu saaro baruurta. waa qaliin lagu sameeyo caloosha hoosteeda iyo lafta bisqinta korkeeda si baruurta looga saaro oo qofku u arko xubintiisa inay dheer tahay ama dheeraatay. qaliinka wax isbeddel dhinaca cabbirkaa kuma sameeyo xubinta, laakiin qofkii ayaaba aaminsan inay u dheeraatay, waana nooc ka mid ah in kalsoonida la soo celiyo. waxaase dhakhaatiir badan ay aaminsan yihiin in dadka ay ka dhaadhacsan tahay inay xubnahoodu yar yihiin oo qasab iskaga dhigay inay wax ka beddelaan ay u baahan yihiin inay la kulmaan dhakhtar xagga dhimirka ah si loo fahmo asbaabaha ku kalifaya iyo qaabka ay u fakarayaan iyo waxa ay damacsan yihiin inta aan lagula talin daawo ama qaliin. guntii iyo gabagabadii daawade haddii aad qabto dhibaatadan ku soo dhowow talooyinku anfacaya. ugu horrayn ragga ku dhibaataysan arrintan waxaa lagula taliyaa inay marka hore u tagaan dhakhtar oo ay ogaadaan inay dabiici u tahay xubintooda iyo inay celidi ka jirto si loogu sheego. midda kalena xubin yarida kuma xirna inaad haweentaada uurayn karta iyo in kale.
haddiise aad aaminsan tahay inaanad uur u yeeli karin xaaskaaga mustaqbalka iyadana in laga dhaadhiciyo ayay u baahan tahay ee dhakhtar la xidhiidh. midda saddexaadna ha ku fakerin in khalqigii iyo abuuristii ilaahay aad u beddeshid si aad kalsooni u dareentid. sida kaaga muuqatana siyaabaha kala duwan ee arrintan lagu xalliyo ama lacagaha looga sameeyo ma istaahisho inaad dareenkaaga iyo kacsigaaga ku weysid oo sariirta aad dhibaato kala kulantid ama aad la kulantid dhibaato cusub oo aanad horey u qabi jirin oo ka daran wixii aad ka cabanaysay. midda kalena oo ku aadan dhallinyarada aaminsan in cabbirka xubinta taranka laga rabo qiyaas go'an inuu leeyahay oo qofku intaas xubintiisa hadday ka yar tahay ay wax ka qaldan yihiin. ogow dadku isku dharar maaha, isku midab maaha, isku muuqaal maaha, sidaas ayayna ku kala duwan yihiin xubnahooda taranka. markaa ha isu daalin inaad raadiso xal dheeraada ee ku kalsoonow abuurista ilaahay, oo haddii aad u baahan tahay inaad faahfaahin dheeraada arrinta ka heshid waa inaad kala tashataa oo la xidhiidhaa dhakhtarkaaga. guntii iyo gabagabadii mawduuceenna, si kastoo aqoonta caafimaadku u horumarto, beddelidda abuurista ilaahay waa arrin lagu hungoobay, dadkii lagu sameeyeyna way ka shalleeyaan, waxayna u badan tahay dhibka laga dhaxlo inuu badanaa ka bato sababtii loo sameeyey qaliinkaas. sidaa awgeed dhakhaatiirta fahansan arrintan waxaa ka dhalan kara kuma taliyaan in lagu dhaqaaqo. arrintan oo aan ka hadlayna way ka duwan tahay daawooyinka loo qaato kacsi la'aanta iyo biyabaxa degdegga ah.